بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكلمة إني رمضان ككساب سنة أما فرديدي مجالستي نصر السعودية رمضان ككساب سنة ما أنتنا قلبتنا إن شاء الله تعالى فرديدي كميد بانقاذنينا maadaama gabagabadii ramadaankii la maraayo waxaan insha allahu tacaala fadhiyadii hore kusoo qaadanay ciidi iyo axkaamteedu iyo zakaatulfitriga iyo axkaamteedu fadhigan galabta insha allah waxaan kusoo qaadanaynaa baraarujin yar oo kooban ee ku saabsan ciidda iyo qaabka loo damaashaado iyo ereyada laiskugu hambalyeeyo oo laiskugu tahniyeeyo. marka koobaad horta waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaanteen ha naga aqbalo acmaashii kala duduwaneed oo aan soo samaynay. birirtu waxaa laga yaabaa inay baciid noqoto. ilaahay acmaasha kala duduwan ee ramadaanka dhexdiisa aan soo samaynay iyo kuwa kasii horreeyba allah horta naga aqbalo. dembigeenna iyo dembi waalidkeenna iyo dembi walaaladeenna iyo dembi culimadeenna iyo mashaayiikhdeenna dhammaan allah ku dhaafo. intaa kadib ciiddii haddii la gaaro oy biri ciid noqoto ama maalin ku xigtaba ay noqoto waxaa la rabaa dadka muslimiinta si shareecada islaamka waafaqsan ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay inay u ciidaan. in waxyaalaha qaladaadka in badan ciidaha markii la gaaro ay dadka qaar ku kacaan in laga fogaado. si wanaagsan ninkii bannaan kusoo ciidaya iyo ninkii gurigiisa ku ciidaya xaalad culus haysataba in si shareecada waafaqsan ilaahayna uu raalli ka yahay subxaanahu wa tacaala horta waa in loo ciido. oo waxyaalaha macaasiyada iyo xumaanta waa in laga fogaado. waxyaalaha ciidaha dhaca waxaa ka mid a gaar ahaan da-yartay dhalinyaradu ay sameeyaan in maanta oo dhanba sawir qaadid lagu mashquulsanaado oo qofkii cibaadada ay kaga tagto ay salaaddii kaga tagto oo takbiiraadkii iyo waxyaalihii mashruuca o dhan ay kaga tagaan. maanta oo dhan sawir qaad iyo inta wax ka day iyo facebook ku tuur uu ku mashquulsan yahay. arrintaa waa nasiib darri. maqsadkaadii ujeedadaada iyo qaayada aad u socoto oo aakhare ah iyna waxa kaa hor istaagin oo horta ayna kaa dhuminin kaana leexinin. waxyaalaha dhaca waxaa ka mid a ciidaha in waa la faraxsan yahay inta la dhaho magacaas un laga duulo wax badan oo muxaramaad ee layska dhegaysto sida heesaha o kaleeto. in muusikada heesaha waxyaalahaas inta la dhegaysto waqti badan lagu bixiyo iyadoo markaa magaca laga duulaaye iyo asalka lagu taagan yahayna uu yahay waa la faraxsan yahay. taana sax maaha oo faraxa waxaa la rabaa inuu shareecada islaamka waafaqsan yahay. damaashaadka waxaa la rabaa inuu shareecada waafaqsan yahay. wuxuu ilaahay raalli ka yahay in lagu damaashaado oo lagu farxa ayaa la rabaa. laakiin in faraxii ay lagu ogolaaday inaad u adeegsata dhanka kalo ood xaaraanta kaga faa'iidaysata adoo magacaas wato magacaana ka duulaayo arrintaas sax ma aha in laga fogaado. waxyaalaha dhaca waxaa ka mid ah in ciidaha la yidhaaha fanaan heblo waa la banlimina iyo hebla aydii heesi jirto heesta macaaneed baa la ballansana la yidhaaha huteelo la kiraysto bannaano laiskugu tago kadib meelaha hataa heesaha dadka dhegaysan lahay lacaga laga qaado. wax waaweyn oo qaali ah in dadkii loo dhigayo loona sheegaya laga soo qaado. arrintaasna waa nasiib darri kale wey. weliba gaarka xaaladdan hadda aan ku jirnood ogtihiin oo dadka inta badan shaqooyinkooda ay ka xiran yihiin duruuf badan ay jirto. dadkii muruqmaalkahay oo dhan oo maalintii wixii ay u baxaan habeenkii dabka ku shuban jiray in badan oo ka mid a shaqadooda ay ka xiran tahay in haddana waxyaalaha noocaas lagu kaco oo dhaqaalihii lagu tunto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka caroodo ee lagu kaco iyadoo walaaladii iyo dadka kale iyo muslimiinta ay baahi yihiin
arrintaas waa arrin khatarteeda leh weye walaalayaal ha laga fogaado. nabigeenina calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi 3 arrimood ilaahay waa inku jeclaana, 3 arrimoodna ilaahay waa inkuga caroonaa. waxyaalaha ilaahay dadku uga caroodo waxaa ka mid idaacatlmaal, xoolaha in lagu ciyaaro, xoolaha in lagu ciyaaro, meelaha xaaraamtu lagu bixiyo, oo heesa si loogu dhegaysan lahay xoole lagu bixiyo, oo sida sawirro loo geli lahay xoolo lagu bixiyo, xoolihii lagu bixiyo, oo sida macnaha loo bodboodi lahay lagu bixiyo. arrintaas marka arrin sax maaha, waa in laga fogaado wey. waxyaalaha ciidda dhaca waxaa ka mid ah in ilmaha loo iibiyo waxyaalaha qaraxyada sameeya oo dadka ka nixiyo. arrintaas xaaraan wey, lama ogolo. waxyaalo yar yar oo ciyaalka iskaga ciyaarayaan haddii loo sameeyo waxba dhib ma laha, laakiin wax dhib geysanayo oo markii agtaada laga tuuro hadhow ayba dhici karto inuu qofku isku naxo. cunuga naftiisa in dhib loo geysta ay ka imaan karto, dad weynaha dhib uga imaan karto, dadka qaarkood ee macnaha xanuunsan hataa dhiigga ku kicin karo, dhib u geysan karo. arrinta noocaas in ilmaha loo gado xaaraam wey. nabigeennana waa reebay calayhi salaatu wasalaam in qofka muslimka la argagixiyo ama wax argagixaysa keenaya sabab looga noqdo. waxyaalaha hadda ka hor dhacay waxaa ka mid ah in ilmo wax noocaas oo kaleeto loo iibiy, kadibna niman xabado wato oo mooryaan ay ilmaha agtooda waxaa ku tuuraan. nimanka markay dhaceen ay naxeen oo naxtin ay qaadeen, ilmihii xabadna ay ku fureen, ay laayeen. marka arrintaas waa arrin khatar weeyaan, inaan waxyaalaha noocaas ilmaha loo iibinin ee waxyaalaha kaleo iska caadiga ah ayagana naftooda aan dhib u keenaynin, dadkana aan dhib ay ka soo gaaraynin in loo iibiyo ayaa la rabaa. waxyaalo badan baa marka walaalayaal dhaco. ikhtilaad waxaa dhaca dumar iyo rag in meelo laiskugu geeyo, isdhex galaan, isdhex boodaan. laga yaaba rag dhalinyaro oo yaryar iyo gabdho yar oo dhalinyaro oo shahwadooda ay xoog badan tahay, haddii meel laiskugu geeyo inay laga yaaba hata xumaantii kasii weyneed iyo zinadii inay usii gudbaan ay dhici karto. arrimahaasna way dhacaan. ciidaha waxaan leeyahay walaalada muslimiinta ha ka fogaadeen meel kastay joogaan arrinta noocaasa. waxyaalaha wanaagsan ciidaha loo baahan yahay waxaa weeyaan waxaa ka mid ah in laysu tahniyeeyo oo farxaddaas iyo mahadcelinta ilaahay loo mahadcelinayo subxaana wa tacaala. ramadaankii lasoo soomay inuu ilaahay ummadda usoo dhammaystiray iyadoo caafimaad iyo nabadgelyo qabto. mahadcelinta marka arrintaa laga samaynayo in laiskugu tahniyeeyo aad bay u fiican tahay. kuwa isla jooga iyo kuwa kala maqanba dhammaan dali dibadba. tahniyadaas marka ereyawan wanaagsan oo shareecadeena ayna diidaynin waa in la adeegsado, sida taqabbal allahu mina wa minka oo salafkii ka sugan qeybo ka mid ah. culimmadu islaamkana ay waxba dhiba ayna u arkin inay arrintaa wanaagsan tahay. annagii idinkaba allaha naga aqbalo, daacaadkii aan soo samayn iyo acmaashii aan soo samayn allaha naga aqbalo, haakada. marka xilligaas laysu tahniyeynayo oo ilaahay subxaana wa tacaala in addoommadii uu ka aqbalo ama uu naga aqbalo acmaashii aan soo samayn laiskugu tahniyeynayo, in xumaan kale lagu jaaziyo oo xumaan xaggeed loo dhaqaaqa sidaan kasoo warrabnayn ayadana sax ma aha. ilaahay marka subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay meel kasta oon joognaba nabadgelyo iyo caafimaad allahna siiyo. xanuunadaa socda iyo khatarada socota iyo amni darrada socotana ilaahay subxaanahu wa tacaala dhinac ha naga mariyo. acmaashan allah ha naga aqbalo, kuwii dembigooda iyo dembi waalidkoodba lagu dhaafan allah ha naga dhigo. ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala ciidda inuu nabadgelyo nagu gaarsiiyo. kuwii hadday guri ku ciidayaan iyo hadday bannaan kusoo ciidayaanba nabad iyo caafimaad iyo barwaaqo ku ciido ayaga iyo ahalkoodaba allah naga dhigo. mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadna waxaan leeyahay ilaahay ha lagaga cabsada subxaanahu wa tacaala. faraxaas la faraxsan yahay, qaladaad yaan lagu dhicin. acmaashii wan wanaagsanado intaa lasoo dadaalayo oo hadday taraawiix tahay iyo hadday tahajud tahay iyo hadduu soon yahay iyo hadday salaad tahay iyo hadday qur-aan akhrin tahay iyo hadday sadaqaad tahay, acmaasha kala daduwaneed abaalgudkeedii iyo shukrigeedii yaan laga dhigin, macsiyo yaan laga dhigin, ilaahay in laga fogaado yaan laga dhigin, in xumaan iyo wanaag laysku qasay yaan laga dhigin. intaas ayaan insha allahu tacaala kelimadeennii aad kala socoteen
xogta salafka media ee xogta salafka inta ayaan kusoo koobaynaa galabta wajazaakum allahu khayran dhammaan dhegaystayaasha iyo daawadayaasha aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa khayrkana inay sii gaarsiyaan insha allahu tacaala waa ka codsanaynaa hada wabillahi towfiiq صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.